انت كسوها سوق بدك waxaan rabnaa waxa soo xoolaan leenahay faqri ma ahin dadka Soomaaliyeed waan aragnay dalal dibadda sidaan u dhisnay keena maalinta isagayna la jooga keena maalinta isagayna la jooga waxaan leenahay aan dib u soo milicna dalkii hala soo noqdo fursadii dalka lagu dhisi karayna maanta waan taaganahay walaalaha min saaxiibadaha danaynayo Soomaaliya inay maal gashadaan waa u furan tahay waa soo dhaweynayna waa ilaalinayna qaanuunka dalka loo sameeyay liiraa qaanuunka ilaaliya maalgashadaha iyo maalgashiga intaba si sharci ah ayaa loo ilaalinaya wixii ka dhiman waa ku jirayna midaas marka ayadana waa sidaas dalku waa fiican yahay waa socdaa kuwa rajo xumada iyo cabsida dadku u tilmaamo waxaan leenahay raalli ahaada dadku sadar muuqda su'aal ka dhan waa la arkayaa waa muuqda dalal aan weligood dagaal sokeeye ka dhicin burbur ka dhicin ayaa maanta Soomaaliya ay ka horeysaa ay ka fiican tahay dhinac walba dhaqaalaha haddii la fiiriyo kasoo weli wax loo dhiban yahay infrastructure haddii la fiiriyo qudrada rabitaanka iyo raqbada dadka xataa haddii la fiiriyo iyo dadaalkooda ilaahay yaa mahad leh caalamka dhulka juqraafigana meel fiicanna dejiyey dadkeennana dad initiatives leh oo ra'yi leh oo rabitaan leh oo maxaanku idhahdaa hal abuur leh fikrad leh ayaa ilaahay ka dhigay waa fiican yihiin sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waayihii la dhaqaaqi lahaay oo waqtigii dheeraayay naga tagay aan waqti kooban soo koobi lahayn waa la joogaa aan u diyaar garowno aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin booliska Soomaaliyeed mar kale hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh